السلام عليكم. haddii qofku weydiiyo waa maxay programming language ma ka jawaabi kartaa? inta badan markaad maqasho programming language maxaa qalbigaaga ku soo dhacayo? qofka bani aadamka markuu maqlo shay markii ugu horeyso wax buu sawirtaa. markii shayga sidii dhabta ahaa loo arko wixii uu sawirtay mar way waafaqayaan marna way kala duwanaanayaan. daawade waxaan ku weydiinayaa programming language maxaad ka aaminsan tahay intaanan gudgalin barnaamijkeena? waxaad ka aaminsan tahay haddeertaan intaadan daawan videohan waxaad noogu soo gudbin kartaa commentiga. markaad daawatidna waxaad ka fahantay videogaana nala wadaag. haddii qofku weydiiyo waa maxay programming language maxaad ugu jawaabi lahayd? programming language waa qaab tilmaan loo siinayo computerka weeyaan. computerka ayaad waxaad siinaysaa tilmaan, computerkana wuu raacayaa tilmaantaas aad siisay ayuu raacayaa. program la'aan ama kood la'aan ma og tahay inaadan isticmaali karin computerkaaga, xitaa inaadan google-ka wax aadan ka raadsan karin. dhinaca kale kombiyuutaradeena si toos ah ulama hadli karno oo ma dhihi karno computer saas samee program la'aan. yacni xaqiiqda ayay waxay tahay computerkeena ma fahmaayo luuqadda aan ku hadlayno. ingiriiska ama af soomaaliga waxay noqotaba computerkeena ma fahmaayo. marka su-aasha meesha taala waxay noqonaysaa computeriska ama electronicska maxay yaqaanaan, maxay ku hadlaan? waa su'aal muhiim ah. computeriska waxay yaqaanaan eber iyo hal ayay yaqaanaan. electronicska oo dhanna waxay yaqaanaan off iyo on ama hal iyo eber ayay yaqaanaan. marka inaan hal iyo eber aan qorno wax micno ah ma samaynayso, computerkeenana inama fahmaayo. taas daraaddeeda si computerka ay bani aadamka isku fahmaan, bani aadamku wuxuu sameeyey waxa la yiraahdo programming language, taas oo u dhaxayso bani aadamka iyo computerka si ay isku fahmaan labadooda, taas oo ah 0 iyo 1. programming languageska qaar waa lower level programming language, taas oo micnaheedu tahay waxay u dhow yihiin machine language-ka ayay u dhow yihiin sida computerada iyo wixii la mid ah. kuwa kale waa higher level programming language, waxay u dhow yihiin bani aadamka iyo luuqadda aan ku hadlayno sida ingiriiska iyo af soomaaliga iyo wixii la mid ah. waxaa jiro 256 ilaa 700 oo programming languages ah. waxaa jiro programming languages oo lagu magacaabo language, kuwaas oo u dhow machine code-ka ama computerka ama mashiinada u dhow ayaa jiro. sidoo kale waxaa jiro programming languages sida Python iyo Java iyo JavaScript ayaa jiraan, kuwaas oo la akhrin karo qoraaladooda ama koodadkooda la akhrin karo ayaa jirto oo bani aadamka akhrin karo. marka su-aasha meesha taala waxay tahay halkaan maxaan ugu tagnay oo maxaan ka ilownay? halkaan waxaa jiro, halkaan waxaan fahanay programming language waxa loola jeedo. halkaan waxaan dhaanay computerka wuxuu fahmi karaa kaliya hal iyo eber. sa ay tahay weli isma fahmi karaan. marka anaga ahaan bani aadam haddaanu nahay waxaan u baahannahay computerkeena inaan fahano. kaliya inaan qorno oo 0 iyo 1 ama hal iyo eber inaan qornana kuma fahmi karno. marka su-aasha meesha taala waxay tahay qaab noocee ah ayaan u fahmi karnaa computerkeena? waxaan u baahannahay soo ma aha turjumaan ayaan u baahannahay si aan computerka iyo anaga aan isku fahano. marka daawade ma la yaaban tahay haddee waxaan soo sheegnay inaanan computerka si toosa aan isku fahmi karin, haddana waxaan leenahay turjumaan ayaan u baahannahay. turjumaan ayaan u baahannahay. turjumaan ayaan u baahannahay micnaheeda ma waxaa waaye inaan koodkeena ama programkeena aan qorno oo qof bani aadama oo luuqadda computerka fahmi karo, iteena fahmi karo oo noo dhaxeeyo miyaan u baahannahay? jawaabtu waxay noqonaysaa maya. bani aadamku sidoo kale wuxuu sameeyey 2 program ayuu sameeyey oo lagu kala magacaabo interpreter iyo compiler. labada program waa turjume, waxay noo turjumayaan koodkeena ayay turjumayaan oo waxay u turjumayaan binary ayay u turjumayaan, kuwaas oo 0 iyo 1 ah, kuwaas oo fahmi karo computerkeena ayay u turjumayaan. haddaba labadan program maxay kala yihiin?
kan koowaad waxaa lagu magacaabaa interpreter. Interpreterka inta badan waxaa isticmaasho luqadda loo yaqaano programming language-ka loo yaqaano sida Python ayaa isticmaasho. Qaabka uu u shaqeeyo ayaa waxay tahay koodka markaa qorto wuxuu u execute garaynayaa line by line ayuu execute garaynayaa. Line-kan ayuu shaqadiisa qabanayaa, wuxuu u turjumayaa binary code ayuu u turjumayaa taasoo computerkeena fahmi karo. Kadib ayuu u gudbayaa line kale ee programka. Dhanka kale compilerka koodkii oo dhan ama programkii oo aan qornay oo dhan hal mar ayuu qaadayaa, wuxuu u bedelayaa binary code ayuu u bedelayaa taas oo computerkeenana fahmi karo. Kadib waxaa fududaanaysa computerkeena inuu jawaab celin soo sameeyo. Marka daawade waxaan filayaa maanta inaad wax badan aad ka fahantay waxa loola jeedo programming language. Intaadan daawan videohan maxaad ka aaminsanayd programming language? Haddase maxaad ka fahantay? Nala wadaag fikirkaaga, noogu soo gudbi commentigaaga. Somali Institute of Technology mar walba waxay diyaar u tahay inay idin la wadaagto wax walba bulshada muhiim u ah. Na taageer oo nagu soo beer. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.